Soomaaliya waxay gobonnimadeeda qaadatay markay dhaheen anaga kulli Soomaaliyaana qabiil ma jiro qabiilkaaga sheeg ma sheegayay anaga Soomaaliyaana rag dumar waxa loo taagnaa qabiilada col baa la ahaa anigu soo joogo boqolkiiba boqol wadani baa la ahaa السلام عليكم نبض خياري ومركل يا برنامج كهنو لاتو تضواد والبا حلقان أو كليان هودا إدين صو مرينو وحنا برنامج كان إذا لسه عدسينا يو ديارة أنا جوها يان له حسين عبدي قفل أوجيهاي إنه ضلك يبسني أيام مسؤولين وصل رسالون ديبي خائن ما كسر ودن كلو سما لو رأي كسر Soomaaliya دبر كلي كله بقوة Soomaaliya waxaa iman doonta in lagu kala hormaro kubiirista Itoobiya laan kan kale oo dhan iga difaac adigan ku hoostaga taas soo socota tusmada toddobaadkan ee barnaamijka waxyaabahan ku soo qaadayna waxa kamid ah burburka qoysaska Soomaalida oo sida la sheegay ku batay qurbaha ayaa waxa isbedelay habkii salaanta qurbaha qisooyinka lagu arkay yaab kale waxa weeye waxaba lagu oran abaayo walaal iska waran fiicanta khayr haye ciyaal meeqaad leedahay 5 ama 6 7 okay ma wadaadkeed wali joogtaan walidee barnaamijyo looga hadlayo kobcinta jacaylka iyo wacyigelinta qoyska ayaa ka socda meelo kamid ah wadankan Britain dabcaagu haduu fool xun yahay oo lagu nicmo laga tagay hadii wanaagsan yahayna qofka soo ku soo cararay waxa kale oo aan idin hayaa waraysi xiiso leh oo aan la yeeshay qoraagii buugga caanka ah ee raaxada guurka Dr. Sabriye Macalin Muuse oo dhawaan aan kula kulmay magaalada London waxana uu ka sheekayn doonaa way aragnimadiisa xagga jacaylka waa nolol qoys oo la asaasay oo isjeclaan iyo kala dambeyn iyo xaq dhowr ku socota wahagaaga khiyaaray ku soo dhawaada barnaamijka aan ku bilaabay nolosha qurbaha waa nolol ka samaysan dhib iyo dheef sida dad badan oo qurba joog ay qabaan dheefta ay Soomaalidu ka heleen nolosha qurbaha ka sokow waxaan la qarin karin dhibaatada ay qabaan qoysas badan oo nolosha qurbaha ku nool kuwaas oo burbur badan uu ka soo gaaray xagga nolosha gaar ahaan qoyska waxaan dhawaan ka qayb galay aqoon isweydaarsi looga hadlayay kobcinta kalsoonida qoyska oo lagu qabtay magaalada London kaasoo ay soo qaban qaabisay xarunta Happy Marriage oo saldhigeedu yahay magaalada Birmingham ee wadanka Britain Soomaali rag iyo dumar reerka dumiye mooyee talata ka roono raaska lagu daweeyiyo miyaan raagid dheeriyo rasmi caashaq oon gurin abidkii ruqayno dabaylaha wahridaya rujin karin guntiiso raasamaalka raaxiyo qoysku rasmi waara noqon karin waa qoris wadaarsigii ugu horeeyay ee noociisa ah ee aan ka qayb galo waa kulan looga hadlayay kobcinta kalsoonida qoyska oo ah mowduuc aad loogu baahi badan yahay marka laga hadlo bulshada Soomaalida qurbaha qisooyinka lagu arkay yaab kale waxa weeye waxaba lagu oran abaayo walaal iska waran fiicanta khayr haye ciyaal meeqaad leedahay 5 ama 6 7 okay ma wadaadkeed wali joogtaan walidee Ridwaan Maxamed waa gabar Soomaali ah oo hadal iyo hawraar intaba kaga hadasha arrimaha qoyska waxana ay kamid ahay dadkii lagu casumay aqoon isweydaarsiga wallahi alcadiim maalin bay 3 qof weydiiyeen yaab anigi malaha wadaadkoonu kala tagi rabna أنا waxaan doonayaa 50 years anniversary wax la yiraahdaan sameeyaa oo qoyska ah sanad guudadii kontanaad ee guurka 15 baan marayaa imisa ay haray 35 ma badawide qaar baad oran ha xaas baanay hadana waxay ku sii weydiin carruurtu ma isfaaba annaga runtii marka hore barnaamij iska caadi ah oo dhalinyaradu ay jecel yihiin baan sameynay laakiin sida iyadaba waxaan ku jirnay muddo 10 sano u dambeysay inaan konferensiyo qaban qaabino ka qayb galno barnaamijyadan laga hadlo mashaakilaadkii maalinta ka dambeysay way sii tarmayeen waxaan aragnay marka in la faafinayo xumaanta oo la sheegayo qoysas burburay aan la sheegin oo la soo hadal qaadin qoys qurux badan Soomaali community-geena dadkeena Soomaaliyeed dhibaatada haysata baana damaqday wallahi inta ka hor telefishinna kamaan soo bixin meelna kamaan hadal laakiin waxa sidan sax ma sidan ay wax ku socdaan sax ma
tobankii reerood ee iscaroosa 6 baa isfuraya 4 baa badbaadaysa wax xaq ma Sheekh Maxamed Jawhari iyo marwadiisa Hiba Cumar waa qoys Soomaali ah oo wada nool muddo 18 sano ah waa asaasayaasha xarunta Happy Marriage Academy oo soo qaban qaabisay kulankan waxaan isnay marka koow guryaha dhalinyarada in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo burburka guryo badan ay arkeen inayna ku ta'aasurin taas aan ugu dhalisay marka in aan soo bandhigno barnaamijyada laba caruur aan habar yar u ahay oo is caroosay waxay yiraahdeen habar yar wiilkii baa ii sheekeynaya wuxuu igu yiri habar yar mar rabno qof dambe is caroosay in 3 weeks oo honeymoon inay qaataan way maxaa dhacaan ku yiri after 2 weeks bay dadku istagaalayaan buu yiri ana igu dhacday buu yiri waxaan isku dagaalnay yiri aniga caroosadeydii nalka kuma jiifsado iyo nalkan ku jiifsada nalko daaran ma seexan karo iyo nalko dansan baan seexan kara baan isku qabsanay yiri honeymoonki wuxuu noogu dhamaaday dagaal soo dhibaato ma meeshaas ugu yar baan kaaga soo qabanaya wixii ka waaweyn maxad ka malayn wuxuu yiri habar qof uma sheegan karno sheekhu ma sheegan karno way wasili question wasili things in waalidu ma sheegan karno wariya idan ma lihide waxa la leeyahay xisho inta badan dadka ka qayb galayay barnaamijka waxay dhageysanayeen casharo ka hadlayay kala duwanaanshaha u dhaxeeya ragga iyo dumarka marka la eego abuurista xagga Rabbi taasi oo muhiim u ah in labada qof ay isguursanaya inta ay isbaranayaan ay darsaan kala duwanaanshaha u dhaxeeya labadooda qof taasi oo sababi karta in aqoonta ay u leeyihiin ay keento in qoysku uu gaaro go'aano ku saabsan kala duwanaanshaha labada qof dartood horta haddaan Soomaali nahay dhaqan baan leenahay dadna waxa weeyaan dhaqanka ayay wax ku fahmaan dadna diintooda wax ku fahmaan diinteena waan wada qabnaa laakiin qofku hadduu cilmi badan u lahayn diintii dhaqankii ayaa wali u haystaa uu ku fahmaya marka waa inaad tusaalooyin luqaddu wax ku fahmayo dhaqankii ah loogu sheegaa qofna luqaddu fahmayo diintii hadduu bartay loogu sheegaa adoo galbeed ku nool oo magacaaga Maxamed iyo Caasha lagu yiraahdo in gurigaagu uu burbursanaado in dhalinyaradii ummadan u soo bixi lahayd ay ku fikiraan ka baqaan dhahdo gurigu iga burburi doona يعني in way out loo sameeyo looga saaro rajada loo furo waxaan rajaynaynaa guri kasta Soomaaliyeed inuu galo haddii la yiraahdo Sheekh Maxamed Xuseen Mataan oo kamid ah culimada Soomaalida ayaa muxaadaro dheer ka jeediyay kulanka taasi uu kaga hadlayay in diintuba ay sal u tahay xanaanada qoyska waxa la rabaa jacayl sax oo odaygaaga markaa jeclaanaysid wiilku markuu islaantiisa jeclaanayo uu u jeclaado ilaahay dartii subxaanahu wa ta'ala ilaahay baa igeliyay islaantaydu laba shay bay ugu leedahay waan jecelahay waan u naxariisanayaa sidaa baan uga dhowrayaa dhibaato kasta oo igu timaada nacam way kugu khaldami wax kasta ay kugu samayni laakiin waxa la rabaa dulqaad badan because waxa weeyaan islaamku wuxuu ku dhisan yahay xaas buu ku dhisan yahay xaasku hadduu burburana islaamkii ma jiro weeyaan horta dumarku waxay jecel yihiin dhageysi badan waxay jecel yihiin naxariis waxay jecel yihiin appreciation in qofka loo garto hawshu ku hayo ayay jecel yihiin ma garatay waa wax yar oo basiida walibana waxyaalahaas hadal baad ku gudan kartaa haddii aad qofka ammaanti waa hadal haddii aad hadal fiican tiraahdid ood wax fiican ku tiraahdid ood meesha uu ka liito ka saro qadidood push garaysid runtii waa wax fiican intaas ay u baahan pressure kay nacab yihiin waxay nacab yihiin fogaashaha waxay nacab yihiin aamusnaanta waa cajiib Soomaha dumarku maadaama ay hadlaan awood daaqad waxa ku jirta hadal marka haddaad u aamustid ciqaabtii ugu weyneed ba haweeneyda ku samaysay hadda haweeneyda u aamustid oo ka gurin hadalka waa dishay qoftaas dhalinyarada ka qayb gashay qaarkood ayaa fursad u helay inay ka hadlaan goobta waxaana ay ka hadleen nolosha farxadda leh ee u dhaxaysa lamaanuhu inay tahay mid u baahan in mar walba ay lamaanuhu ka sheekaystaan waxyaabaha noloshooda la xiriira taasi oo abuuraysa in kalsoonida u dhaxaysa ay sii ballaarato gabar 30 sano ka hor aan guursaday ayaan wali qabaa maasha Allah 25 bishii March 1985 anoo wiil yar oo dugsi sare ka baxay ayaan guursaday 6 ciyaal ay dhashay nolol mid qaraar iyo mid macaanba waa soo wada qaadanay aasaaska nolosha waxay ku xiran tahay horta tii Ilaahay waa iska meesheedii waxaa kaloo muhiim ah qofka bini aadanka inuu ku dabaqo qofka uu nolosha la wadaagayo wax la yiraahdo dulqaad isfahan iyo aragti dheer oo ku salaysan ayatiin nolol farxad leh
marka waqti hadalka aan idinku badin taariikhdeydii iyo noloshaydii iyo sirta aan 30 sano ku soo gaaray ilaahay ka sokow barnaamijyada kale aan kaga sheekeyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin kay markii ugu horeysay dad Soomaali oo mataqaanaa dhaqankoodii wataan oo diintoodii wataan oo wadaade haddana ka hadlaayo guurka wanaagsan jaceylka nolosha mataqaanaa sidii looga dhigi lahaa nolol aad u qurux badan marka wax aniga ila noqoto surprise ama wax aad iigu cusub oo aan weli u arkin waxay ku salaysan yihiin diin kow in la fahmo diintii maxaan ku raadayay dhaqankii aan wadanay saddex modernity aan ku dhex nool aasaasiyaasha xarunta Happy Marriage Academy ayaa aad loogu amaanay doorka ay ka qaataan bulshada oo aad ugu baahi qabta marka laga hadlo arrimaha la xiriira talada qoyska waxaana la sheegay in qoysas fara badan oo Soomaaliya ay u burburaan arrimo u baahan talo xagga qoyska ah oo kaliya dhalinyarada waxaan u leeyahay inta aanad qofka aad guursanaysa aanad guursanin baro horta qofka oo waxaad barataa aqligiisa iyo dabiiciisa iyo qaabka uu hadlayo baro kuwa isla noole hadda isla joogay ee dhibta isku hayaana dhibtu meesha ka timid raadiyo isku day inaad fahanto qofkan aad la nooshahay rag iyo dumarba jarkaan rabna waxa weeyaan laba qof oo diyaar u ah inay wax kasto dhibaato ka hor timaado iska daafici karaan true communication isfahan dhageysi dhibaato kasto ku dhacda way iska daafici karaan laana haduu gurigaagu uu degan yahay waxa diyaar u tahay wax kasto outside-ka kaaga yimaada inay iska celin kartid waxaa jira qoysas badan oo farxad iyo isfaham ku wada nool kuwaasi oo noloshoodu ay dhisan tahay laakiin Sheikh Ahmed Jawhari waxa uu qabaa in qoysaska dhaqan ay tahay in ay banaanka u soo baxaan oo ay badbaadiyaan walaalahooda dumaya waxaan raadinaynaa anagu runtii kuwaasi waa la marginalize galay moogtaa in laga soo saaro oo maaragtay ay hadlaan oo wanaag iyo quruxda la faafiyo inta xumaanta la faafinayo Ahmed Yahibo ayaa sheegay in ujeedadoodu ay tahay in fariintoodu ay gaarto qoys walba oo Soomaali ah ugu yaraan isla markaana lagu xusuusto inay qayb ku lahaayeen nolosha qoysaska muslimka ah meel walba ay joogaan taasaan rabnaa marka hadduu alla yiraahdo inaan anagu ka qayb qaadano oo haddaan adduunyada ka tagno lanagu xasuusan karo la oran karo waxbay ka bedeleen qoysaskii hadday Soomaali yihiin iyo hadday muslimiin yihiin iyo hadday bilaadan yihiin meel kasta joogaan إنما الأعمال بالنيات نية دا ugu horeysa haduu qofku niyadiisu ka soo goodo inuu reerkiisa dago oo nimcada ay noqoto uu sameyn kara everything uu fududaan kara war waxa la naco ma aha qofka ma aha baariga ma aha sidoo u egyahay waxa la jeclaado ma aha maaragtay korka sare waxa la jeclaado waxa qalbiga ku jira weeyaan ya qalbiga han safayno dabeecada aan badalno wax wanaagsan aan noqono taas maaragtay aan oran lahayn insha Allah ta'ala inay dadku wanaajiyaan akhlaaqda la isku dilaa dabeecada la isku dilaa wax qof ku soo dhaweeyana waa dhaqanka wanaagsan islaan kasta iyo oday kasta waxaan ku oranayaa dhaqankaaga bedel isjeclaysi qofka kula nool ummadoo dhan way ku jeclaanay wahagaag daawadayaal waan filayaa inaad wax ka kororsateen barnaamijkaasi kooban ee looga hadlayay kobcinta nolosha gaar ahaan kalsoonida lamaanaha iyo qoyska Soomaalida ah waana barnaamij xiiso badan oo dhawaan lagu qabtay magaalada London waxaana soo qaban qaabiyay xarunta ka shaqeysa wacyigelinta iyo cilmi baarista arrimaha qoyska ee la yiraahdo Happy Marriage Academy ee saldhigeedu yahay magaalada Birmingham ha noolaato waa barnaamij madax bannaan oo ku salaysan nolosha Soomaalida sheekiyo shaahid sax iyo qalad gorfeynta siyaasadda run iyo raad dhaxalka taariikhda iyo DBDF nolosha qurbaha kala soco ha noolaato sida laga yaabo dad badan oo Soomaaliya inay la socdaan buugga raaxada guurka waa buuggii ugu horeeyay oo ka hadlaya waxyaabo badan oo quseeya nolosha lamaanaha iyo qoyska kaasi oo ku salaysan sida jacaylka loo barbaariyo iyo xiriirka kalsoonida ku dhisan ee u dhaxayn kara labada qof ee reer kale waa buug si heer sare ah loo qoray waxaana qoray oo buuggaasi diyaariyay Sabriye Macalin Muuse oo ah aqoon-yahan degan wadanka Mareykanka isla markaana bartay culumta la xiriirta beeraha laakiin dhanka kale Sabriye waxa wax ka qoraa culumta bulshada Sabriye waxaan kula kulmay magaalada London oo ay suura gashay inaan ku arko waxaan ka wareystay buugga uu qoray ee raaxada guurka iyo waxa uu ku tilmaami karo jacaylka Soomaalida haddii uu kaashado khibradiisa bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay ayaan le Soomaalida waa miyi iyo magaalo dhaqanka magaaladuna wuxuu aad xiriir u leeyahay dhaqamada magaalooyinka kale ama ummadaha kale oo islaam ha noqoto ama
nolosha aada ugu dhow civilizationka ama xadaaradda ugu dhow ayuu xiriir la leeyahay. baadiyaha marka la yidhaahdo dad waa isjeclaadaa oo jecel waa jiraa, laakiin waxaa ka muhiimsan waa dad shaqeeya oo gacan wax ka qabta oo waxay isku doortaan inta badan challenge nolosha kula jira, oo waxaa la isku doortaa waxyaabo kale oo aan jacaylka inta badan shaqo ku lahayn. nin karmeednimo, aftahanimo, deeqsinimo, wiil ka tilmaaman dadka kale oo ama cayaar ha noqoto ama bootin ha noqoto ama waxyaabo kale oo maaragtay qofka lagu qiimeeyo. gabadha sidoo kale quruxdeeda, reerkeeda ay ka dhalatay, qoyska ay ka dhalatay iyo quruxdeeda iyo waxyaabahaasaa la isku qiimeeyaa. magaalada marka loo soo dego jacayl waa jiraa, iskuulladiyaa isku dhafa, wixii oo dhan baa laysdhex joogaa. meeshaasuu jacaylku ka bilowdaa inta badan oo annagu aan hadda garanayno. jacaylkuna sidiisaba waa labada qof oo isjeclaana jacaylku waa indhala iyaa la yidhaahdaa. waxyaabihii hadda qiimeyntii kale inta badan waxaa laga yaabaa physically ama muuqaalka kora qofka inta la arko markaas in la yidhaahdo waa jeclahay. waaya soomaalidu maxaan ku tirin karnaa ka soomaali ahaan mujtamaca, ka bulsho ahaan ma ummad mucaashaqiin lahbaa oo jacaylka taxgeliyaba mise waa ummad aan jacaylka macno badan agteeda ka lahayn? wallaahi haddee cilmi boodhari iyo hodan iyo taariikho waa iska jiraan oo maaragtay dad taariikhda soomaalidu kama marno jacaylka. waqtigan hadda la joogana iyo waqtiyadii dhowaa ee lasoo dhaafayna waa jireen dad badan oo isjecel, dad badan oo ummaddu waa aniga kolleyba waxaan kusoo barbaaray jiil generation dowladdiioo jirta, dugsi sare ka baxay, qayb ayaan ka ahaa jacaylkaas, qaybaan ka ahaa. marka qaybaan ka ahaa. inta badan waxyaabahan jacaylka iyo laga sheekeeyo waxaa loogu tagaa magaalada. dabcan miyiga waa nolol adag, waa nolol aan jiljiraac iyo u baahnayn iyo waxyaaba noocaasa. bulshada dhexdeeda jacaylka ka jira maxaan ku fasiri karna? jacaylka horta soomaalidu ma muujiyaan inta badan marka laga yimaado wiil iyo gabar. hooyada ilmaheeda waa jeceshahay, aabbo caruurtiisa waa jecel yahay, qaraabadu waa isjecel yihiin, asxaabtu waa isjeceshahay, laakiin ma muujiyaan. oo waa dad moor oo dhaqankii adadkaa baadiyaha laga keenay weli uu kusii socdo magaaladii lafteedii, inkastoo ay wax iska bebedelayaan. jacaylka wiil iyo gabar dhex maraa ugu muhiimsan waxaa caanka ah oo ummaddu ay taqaano. asagaasna inta badan wanaag kuma dhammaado, sababtoo ah waalidaa ka dambeeya, waxyaabo kaloo la isku qiimeeya meesha soo gelaya, wuxuu u badan yahay mid burbur ku dhammaada. aad iyo aad waaya. waxaa tahay nin caan noqday oo qoray buuggii raaxada guurka, oo dabcan ah buug weyn oo saldhig u noqday nolosha mucaashaqiinta iyo nolosha qoyska marka laga hadlo ee soomaalida. marka buugga taariikh ahaan raaxada guurka maxaad iga sheegi kartaa? buugga raaxada guurka fikraddiisu waxay soo bilaabatay sideetamaadkii, bartamihii sideetamaadkii qarnigii tegey, anoo weli ardaya dugsi sare dhigta, jacaylna ku jira, aada iyo aada u waalan. yaraan saaxiibanahay ayaa wuxuu isiiye isku classmate aan ahayn oon fasal isla dhiganaynay, ayaa wuxuu isiiye horta iskuulka carabtaan dhigan jiray. waxay fursad ii siisay inaan akhriyo waxyaabo badan oo af carabi ku qoran. markaas waxaan dareemaynay xoogaha ardada soomaalida inaan wax dheernahay bartood, sababtoo ah luqadihii kale waagii wax lagu baran jiray sooma gaarin. af ingiriis oo hal maado ah maahana af soomaaliya ay ardada kale wax ku qaadan jireen, marka laga reebo dugsiga badda iyo af ingiriis ku qaadan jiray. marka waxaan isleeyahay xoogaha ayaad dheertihiin. marka wiilkaas buugga carabiga aad akhrisay, luqadda carabiga ayaad wax ka soo heshay? ayaan akhristay. fikrad waxaa iiga baxday ah, warniyaha buuggan waxaa ku qoran soomaali waa u baahan tahay maad gaarsiisid. buuggii waan haystay, carabaan tegey, waa buwaagtii waa sii badsaday, library kastoon tago, maktabad kastoon galo, wixii mawduucaas ku saabsan sidaan u baari jiray, beeraan baran jiray, sidaan u baaro buwaagta beeraha ku saabsan ayaan kuwa guurka ku saabsan u baari jiray. ilaa waa dambe aan fursad u helay inaan wixii ururiyo, shaandheeyo, habeeyo. qof akademiga ah noqday, bajularaan qaatay, kadibna masteredan qaatay. qaab qoraalkii iyo wixii intaan bartay inaan bal wixii aan buug ahaan u sameeyo, references u yeelo. taasay kusoo bilaabatay fikraddu, mar hore soo bilaabatay. waaya laakiin sabriya waxaa la isdhihi karaa
xaaladda Soomaaliya waa laga warqabay ummadda Soomaalidana marka arrimahaas laga hadlayo aad baad ula socotay sideed ugu dhiiratay inaad mowduucan xasaasiga ah ka hadasho oo ah waliba mowduuc bulsho ahaan aan si furan looga hadli karin waa runtaa laakiin waxaa jira referenceska aniga isticmaalay badankoodu waa carabna waa dal islaam ah haddii waxyaabo ay tahay inaan laga hadlinna ayagaa nooga owleysan wixii ayagu u bareereen in loo bareeri karo ayaa iga dhaadhacsanayd librariga ku yaala qaahira buugga yaala waa inuu yaalaa muqdisho waan ogahay waxyaaba badan oo soomaalida aan hore looga hadal aan la taaban aan taabtay natiijadeediina waan arkay dad badan oo ku faraxsanna waan arkay oo igu dhiirigeliyey dad badan oo fikraddii ka hor yimidna waan arkay sababtoo ah waxaa caadi ah jirka iyo qofkuba waxaysan aqoon waa la dagaalamaan qofta haweeneyda ah uurkeeda ilmaha gala waxay kula dagaalantaa matag jirkiyaa iska difaacaya bini aadamkuna waa sidaas oo kale fikraddii cusub oo timaada taariikhda markaad dib u raacdana rag badan oo fikrado cusub la yimid waa waalan yihiin iyo qaar la dilay iyo aakhirkiina fikraddii waa lagu qanacay waayahay laakiin adiga ka sabriye ahaan qofka ibni aadamka oo mujtamaca ku dhex nool dadka uu ku dhex jiro meel ayuu kaga aadan yahay waxaa la isdhihi karaa sabriye intaasoo milyan oo arday oo Soomaaliya kumanaan ayaa arrintan jacaylkan iyo xaaladiisa wax badan la soo maray sabriye maxaa gaar ahaan isaga arrintan uu isugu xil saaray ma wuxuu ku jiray badan jacaylka wuxuu ahaa nin aan ka liidan boodhari iyo hodan iyo taariikhdooda oo aad u daneynayay maadaama isagu wax soo gaareen inuu arrintan bal dadka la wadaago waa jirtaa horta nin ahlu jacayl ah qof aan tijaabada soo marin waxba kama sheegi karo marka arrintaas waa jirta laakiin macnaheedu ma aha inaan anigu kaga duwanaa yani dhalinyarada Soomaaliyeed dad badan oo iga mid ah ama iga darnaaya jiray laakiin tallaabo kastoo la qaado horta qofaa qaada qofkii markaas fursad u helay dad badan oo fursadeedu kala helay laakiin ka caajisay ama aan isku dayin mowduucuna jacayl more or less jacayl ma aha waa guur jacayl ku socda maahane qaabka Soomaalidu u taqaano jacaylka oo amoora in la jilo wiil iyo gabar arday oo waxay haystaan la arago maanta dhan iska daba jiitamo waa ku jeclahay iyo inay buugu saas ma aha waa nolol qoys oo la aasaasay oo isjeclaan iyo kala dambeyn iyo xaq dhowr ku socota jacayl ka bilowday mase jacayl qoys ka bilowday waa jacayl qoys ka bilowday sababtoo ah qofka gabadha waxa lagu doortana waa diintiina waa noo sheegtay wixii kaloo lagu darsan karana waa lagu darsanay bayska waa diinta islaamka waa in qoyskeeda iyo quruxdeeda iyo maxaa la yiraahdaa xoolaheeda iyo diinteeda oo waliba la yiri diinta mar walba ha ka tagin wiilkana akhlaaqdiisa iyo diintiisa intaasay bays diinta uga dhigtay wixii kale oo ku darsama oo wanaag ahna waa lagu sii daray bayskaasa laga duula laakiin jacayl iska mutlaqaho oo qofkan adoona wuxuu yahay wuxuu tari karo wuxuu galo wuxuu gudo aad iska jeclaato taas waa xoogaa waxaad moodaa aad iyo aad waaya aan dib kugu celiyo 80-yadii markii aad ku jirtay badan caashaqa ee aad buugaagta akhrin jirtay waqtigii dambe aad ku fakartay inaad wax qorto ood mutacallimka noqotay istir wax daabac aan kuu celiyo iyadana markii dambe buuggii la daabacay ee dad badan ay akhriyeen lafteeda aan soo qaato waxaasoo dhan marka aad isku darto ninka qoray buuggan macnaha sheekooyinkan soo ururiyey macluumaadkan dadka Soomaaliyeed u soo gudbiyey waa Sabriye Macalin Muuse waa nin caynka ah wallaahi Sabriye Macalin Muuse waa nin horta yaraanteedii agoonnimo ku soo koray jacaylku uu ka maqnaa noloshiisa hooyadayna intaan yaraa muddo aanan la noolaan mawjadaha adduunyadu ay hadba mar dhinacii galbinayeen agoonnimadaas iyo waxaad moodaa inay qayb ku leedahay creativity-ga qofka inuu wax hal abuuro duruufaha ku keena qof kasta oo gabyo feeri noloshiisu caadi cunug yar oo hooyo iyo aabba nolol caadiya ku nool ay iska dhaleen oo marxalado caadiya soo maray ma aha qofka wax qora iyo qofka gabya iyo qofka
inaad wax abuurto waxa kugu dhalin kara duruufo aada soo martay marka sidaasaan kusoo barbaaray nolosheyda qayb weyn oo ka mid ahna waa ila socotay arrintaasi marka waxaan isleeyahay waxaan ahay qof aada iyo aada u qalbi jilacsan aragtideyda kore qof dadka arkaa waxay ii haystaan inaan ahay xoogaa nin aad adag laakiin deeply gudahayga markaan fiiriyo waxaan ahay qof aada u naxariis badan oo aada u qalbi jilacsan oo waxyaabo badan markaan arko ama maqlo aan aada ugu ta'asuro oo raad igu yeesho oo laga yaabo inaan ilmeeyo ama aan la ooyo marka waxyaabahaas oo dhan qaybay ku leeyihiin alifaada iyo qorista buuggan wahagaagkaasi wuxuu ahaa Sabriye Macalin Muuse oo ah qoraaga buugga caanka noqday ee la yiraahdo Raaxada Guurka oo igu waramayay kulan aan kula yeeshay magaalada London dhawaan Sabriye waxa uu ii sheegay sidoo kale inuu soo wado buug cusub oo la yiraahdo Barbaarinta Ubadka kaasi oo dhawaan uu daabici doono dhankayga khiyaaray barnaamijkii guud ahaan inta ay noo joogo talo iyo tusaale waxay aad noo haysaan fadlan inoo soo dira waana ku mahadsantihiin la socodka barnaamijka waa Yaanla Xuseen Cabdi oo idin leh Soomaali meel walba aad joogtaan nabad iyo warsan insha Allah